مركب كسر ولا جنان قدام فيلمس واسماعيل داني منطقة أنتوا بدل أنت فهمت الله أكبر الحمد لله وعليه خير الله كم يدعي كل واقعي قبل كم يوم تقول زود داي حبسي ذليبي والله أنت اللي من ربع إلا داو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله شكرا كدي مركي بنان لكينا وبعض قصص صار حقيقتنا بنان جبتو قيرو فرحة قرير iyo ayadoo ku murugoonaysa xabsigii iyo dhibaatadii la soo kulantay iyo sida maanta ilaahay uu soo badbaaday ayadoo xor ah ee wadankeeda ay ku naqarabto waa ilaahay mahadiis dadkaas ka soo baxeen xabsiyada Liibiya oo magafayaasha ay ku haysteen waa dhib badan tahay Liibiya oo saan ka warqabnaa maxaabiis badan oo xabsiyada ku jiraan kuwaas ilaahay waxaan u rajaynaynaa in maaragtahay ay ka soo baxaan sidaan ognahay Liibiya waa meesha dhib badan ay ka soo maraan dadka xabsiyada Liibiya ama magafayaasha soo maraan ee rabaan inay maaragtay ka soo talaabaan badda Mediterranean-ka si ay u soo gaaraan wadamada reer Yurub. Sidoo kale weli xabsiyada Liibiya ama magafayaasha xerooyinkooda waxaa ku dhibaataysan Soomaali badan kuwaas oo loo haysto madax furasho ama lacagihii lagu soo taariibay ha ahaadaan ama lacago kaleeto baad ee dadka qaar waxaa arkay lacagta ay uga bixiyeen haddana lacag kaleeto laga sii qaadana loo haysto dadkaas weli xabsiyada Liibiya iyo xerooyinka magafayaasha ku buuxaan waxaa sidoo kale wax lagu murugooday oo in badan in dadkooda sabool yihiin wiilal iyo gabdho dhalinyaro soo taariibaan Liibiya aadaan ayagoo islahayn rajo ka qabaan bal nolosha waalidkiin ku nool yihiin iyo bi'ada ku nooshihiin wax ka bedel isla markaasna aysan ogeyn waxa uga soo horeeyo saxaraha waxa uga soo horeeyo magafa markii loo imaado oo ogtihiin magafa agtiisa naxariis iyo dhibco taalo وأريتين أنت اللي هي الصومالي ويقول له قبل له كده يعترسن ما هو بديله مقالة يصدقوا اللي هيك على العقل اللي بيصدر خاركود حتى العقتي يكون بحلا ينتبهين أما الله ما صدق من أفر مشمر العقت شو بين وحلاقي مقفياش لفت كذا كاللعن ضد هستان إن أيجي هذا المرة بعد العي أو مقفك اللي توهدنا أو قصدي وليه العكس صدر ضد كي قصة تجين سيدي شيء وضد مساكين سواله oo wadin mar walba lacagtaas ay bixiyaan lacag badan 5,000 10,000 qaarkood 15,000 lagu sheegtaa runtii xabsiyada Soomaalida ku jiraan Liibiya kaliya ma ahan wadamo badan ay ku dhiban yihiin Soomaalida ay xabsiga ku jiraan dawlad daryeeshan maanta oo ka warqabto oo dadkaas ama soo deyso ama wadankooda ku soo celiso ama wax u qabatana ma jirto saan ka warqabno iska dhaaf dad dibadda xabsiga ku jiray kuwa wadanka dhexdiisa ku noolaa maaragtahay حالكود إلى رؤيه بل مقالك غيرتي سكالة أنا أسلام ما تخافوش ما تخافوش قولوا الشرطة ما تخافوش ما دام الدولتين الدولة سكتورية لكن الحمد لله وعلى إن هذه الدولتين الدولة كتميسهم إني كصوفيا نانيس وأنا رجينا أن ربنا حبسيده كجيران إن إلهي كصوبي كانت عدوى runtii waxaa kale xusid mudan ayadana Yurubtan arkiis laftirkeeda iyo Mareykanka xabsiyada waa dhalinyaro badan ka buuxaan qaarkood daraagis ugu soo xiray qaarkood faldan iyo digaleen dhalinyarada Soomaaliyeed runtii meel walba ay ku dayacan tahay ilaahay waxaan u baryaynaa in maaragtahay dhalinyaradii xabsiyada ku jira ilaahay ka soo badbaadiyo kuwa daraagiska iyo nolosha ka dhaceen ee nolosha dib u soo noqdaan maalin waxay imaan doontaa dawladdeena awood badan oo qofka Soomaaliga ah oo qiimo yeeshto oo maaragtay meel walba oo tago xorriyadiisa aan lagu xadgudbi karaynin sidii xoolihii aan xabsi la iska gashi karaynin marka arko muuqaaladan oo kaleeto waxay soo xasuusinayaan heestii abwaanjihee in waqtigu cajiib yahay waqti inuu cajiib yahay waxbuustii la qadaran runtii maxaabiista iskuma sii jiraan markii qof Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed lagu xiro qurbaha waa ka sii xanuun badan tahay nin wadankiisa ku xiran sababtoo ninka wadankiisa xabsi ku jiro wuxuu ilaa dadkiisa soo booqanayo waxaa laga yaabaa maalin uu madaxweynaha cafis oo fidiyo
waddankiisii uu jooga laakiin waa ka xanuun badan tahay markii qurbaha ama waddanka dibaddiisa maxaabiista lagu helo. Muuqaalkeen maanta meeshaas aan kusoo gabagabeynayna intii muuqaalo kaleeta aynu soo gudbinayno waa Ismaaciil Daamile waa mahadsantihiin sidaas iyo la socda wanaagsan.